السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan casharkeenii saddexaad ee aynu ku baranayay VB-ga inagoo samayn doono database ugu horeyna ka samayn doono foomkii ugu horeeyay ee lagu gali doono. marka hore si ay nooga horeyn doonaan afarta daaqadood halay saddex daaqadood ama afarta daaqadood ee ugu muhiimsan uu ka kooban yahay programkeenani. aynu markaa soo furano programkeenii VB-ga waa kan Microsoft Visual Studio oo waxaan isticmaalaynaa versionkii 2010 markaan soo kicino waad aragtaa hadeer uu soo kacaya. markuu sidan u soo kaco waxaad dooranaysaa new project cusub ayaan u baahanahay baad leedahay. haye waxaad leedahay haddii uu meelahan kale iminka kaaga dhaco meelahan kale oo dhan waa meelo shaqooyin kala qabta. marka inagu casharkeenu waxa uu daaran yahay halka yar ugu horeysa ee Visual Basic oo VB loo soo gaabiyay Visual Basic. kadibna weynay markaad halka ku dhufataa ay halkaas ku doorataa Windows Forms application ee VB ku taala. kadibna magacyada ula baxaysa programkaaga magacyada ula baxaysa waxaan ula baxaynaa dayax baan ula bax dadna waxaan leeyahay okay ayaan leeyahay. iminka waad aragtaan sidan ayuu inoo soo baxa. waxaa inoo soo baxay laba daaqadood oo ah mid tools tahay magaceedu tahay tools oo ka ah programku ku dhaqaaqayo ee toolska la isticmaalayo. tanna ay tahay Solution Explorer baa la dhahaa oo iyadana waxaan ka helaynaa dhammaan waxaan foomamkeenu ka kooban yahay. haddana soo gelina halkan uu galaya haddaynu foom kale ku soo darsano halkan baynu ka helaynaa. waxaa jirta iyaduna mid kale oo la yiraahdo properties mid walbana processka aynu ku heli karno waynu sheegi doonaa insha Allah markaynu weyno. iyaduna waa tan waa tii kale dul fuushay iminka tii kale waa tan iyaduna halkaasaad marba ka bedbedelan kartaa oo kuwa marka afartii daaqadood aan sheegaynay ayaynu haynaa. afartii daaqadood waynu haynaa. mid waxa weeyaan ku soo celiyo mid waa Solution Explorer midna waa propertieska. marka dhammaan waynu haysanaa akoon midota oo Solution Explorer midna waa propertieski. marka waxaanu rabnaa shayga ugu horeeya haddii aad wadada ka lunto sidee ayaad ugu soo laaban kartaa. macnaha waxaan uga jeedaa haddii daaqadahan mid ka mid ah ay naga xidhmaan ama kan laftigiisu waa foomka inuu design garayn doono insha Allah haddii uu inaga xidhmo oo uu sidaaba noqdo oo aan halkan ba ka xidhno xagiban ka heli karnaa. sorry waa halkii haddii uu saaba noqdo aan halkaaba ka xidho xagiban ka doonan karaa. ma isticmaali karo toolskii ma isticmaali karo propertieski waxaan dhaqaajin karayaa haba yaraatee ma jiro ilaa aan soo helo foomkii aan design garaynayay ee toolsku markaas ayuu ku soo baxay. markaad la timaado halkii aad ku design garaynaysay foomka halkaad ku design garaynaysay ee foomka ahayd ayuu toolski ku soo baxay. propertiesku saas oo kale waa ku markaas ku shaqeynaya. marka waxaan tagaynaa Explorer oo laga soo kicisto waa kan foomkeenii. dadna waxaan leenahay halkan waxa view designer itus designkay halkan waa view codes. marka view codes kale inama khuseeyo oo dib aynu ka baran doonaa insha Allah. halkan ayaynu ka soo kicsanayna waxaan leenahay click baan leenahay kadibna waa kan dibna u socdiyo. in ka saad aragto tool propertieski uu inoo shaqeeyay
tan waa lamid oo way noo shaqaysay. haddaynu eegno propertieskiina waa tan oo way noo shaqaysay. iminka waxaanu baranay foomkaas sida loo soo ceshto. aan mar labaad ku celiyo waa kaa hadduu inaga xidhmo taas ayaad iska tegaysaa ama solution explorerka ayaad tegaysaa kadibna waa kan form1.vb marka odhan maysid view codes oo haddaan view codes idhaahdo waa kood gareeb oo koodhanayaa oo markaad programkaagii ka wada shaqaysiinaysid butonadiisii aad rabto inuu wax shaqaynayo noqdo ayaa isaga codeska lagaaga baahan yahay. marka inagu codes hadda gelimayno bilowban iska nahayba view designerka ayaan ku dhufanayaa kadibna waan helayaa foomkaygii isagoo sidiisii ah. sidoo kale haddii ay kaa maqan tahay saddexdan waxalood hababka lagu heli karo ayaynu eegaynaa. mid walba 2 hab ayaan ka sheegaynaa oo aynu ku heli karno. waxaan baynu iska xidhno dhammaan ka xidhno saddexdooda baynu xidhno waxaa inoo soo hadhay foomkii ayaa inoo soo hadhay marka waxaan rabnaa tooliskii aynu ku dhisan garanayn daaqadii tooliskaada saaw dheerarnayd ee aan ku dhisan garanaynay foomkeenan inaynu helo talow how they find sidee baan ku heli karaa baad leedahay. 2 habbaad ku heli kartaa. kow inaad halkaa tagto yaree qaybtaas sare ee headkaa sare dabeedna aad ku dhufato meesha yaree dubahayo isdhaafsan yihiin iyo bahashan yaree baabuurta lagu furo kale. marka waxay kaga turjumaysaa tools 2 shay dube iyo birtan yaree la yaado baanada ay ku sawiran yihiin ayaad ku dhufan kartaa wakaa dabeedna markaan saa ugu dhuftaba saas ayay igu soo baxaysaa igu soo istaagaysaa. habkaasi waa habka labaad aynu ku heli karnaa waa inaan iyada dul tagno. waxaa ku soo baxay halkaa waxaad ku heli kartaa tools bogoska waxaad ku heli kartaa buu ku leeyahay control plus alta plus x. iminka haddaan isku qabano keyboardka control plus alta plus x waata way soo booday. taas 2 hab ayaynu ku heli karnaa. daaqada labaad aan uga gudubno oo propertieska ah. propertieska inoo dambeysay aynu explorerka oo kii aynu tan ka soo saaraynay ah aynu ku noqono waa tan iyadana halkaas toolboxkii waa kaa isagu waa tan 2 hab ku helay. marna inaynu halkaa ka click siino marna inaynu taabano control plus alta plus x. tanna sidaas leeg ayaynu iyaduna ay meel la taalaa toolboxkii click baan leenahay kaas ayaynu ku helaynaa oo marka iyadu dhinacan ma degto laftigaay dhinaca midigta ma degto ee dhinaca bidixda deegaanyada iyo propertiesku oo loogu talagalay inay degaan. marka taasi waa hab aynu ku heli karno solution explorerkeeni daaqadeeni oo ah inaynu halkaan naahno ama inaynu inaga hawl yaraysanayna. halkaa markaan dul tagno maxay soo qoray control plus alta plus l baad ku heli kartaa adoo hawl yaraysanaya keyboardka isku qato control plus alta plus l. plus ma aha macnaha plus oo la isu geynayo laakiin waxa weeye saddexdaba isku qabo. saddexdaba marka isku qabato oo mid oo se u kala horeeyana isugu qabato control ashaad qabato altada ku xijiso elta aad ku xijiso sidaas ay kugu soo baxaysaa. markii aan ku celino 2 hab ayaynu ku heli karnaa solution explorerka inaynu halkaas sare tagno oo click nidhaahno oo dabeedna sidaa inoogu soo baxdo iyo inaynu nidhaahno control alta l saddexdaas ku qabano dabeedna sidaa inoogu soo baxdo. habka 2 hab ayaynu iyadana daaqadeenana ku baran karnaa. daaqada saddexaad oo ah propertieska oo iyaduna ah qayb weyn oo kamid ah foomkeena sidee baynu ka heli karnaa. iyadana waxa halkaa wuxuba toolskaad isticmaalaysa saddexdii daaqadood waa kuwa propertieska wata gacanta yar ku sawiranta iyo buugga yar
markaa click baad siinaysaa sida may kuu soo baxaysaa. daaqad waliba waxay qabatana dib baynu ka sharaxi doonaa markaan isticmaalaynana waad arki doontaa mid waliba waxay qabato. markaa waa tan propertieska habka koowaad halkaasaynu click siinaynaa kadibna saasay nagu soo baxay. habka labaadna markaanu dul tagno maxay soo qora F4 qabo marka F4 kaliya taabanaynaa keyboardka F4 haday waliba keyboardka qaybta ugu sareysa ay ku yaalaan F1 F2 F3 ilaa iyo F12 marka F4 markaan qabto markiiba waa soo boodaysaa. intaasi waxa weeye haday daaqadahan inaga xidhmaan sidee baynu ku heli karin mid walba laba process baynu ka soo sheegnay oo tooliska laba process baynu ka soo sheegnay inaynu halka ku dhufano iyo inaynu control plus alt plus x isku taabano sidoo kale solution explorer kaliyada waxaan ku heli karaynaa inaynu isku qabano control plus alt plus l sidoo kale propertieska iyadana laba habeen ku heli karaynay inaynu iyadana halka kali garayno sida kuwa hore kale oo iyagana dusha laga kali garaynayay iyo inaynu F4 taabano afarta qaab aynu ku heli karaynaa. marka iminka tusaale ahaan haday waxba kaaga masaxmaan oo meeshiiba saa u madoobato sidee baan talo ku heli karaa horta foomkaygii markii hore ii soo taagnaa foomkaaga ma heli kartid ilaa aad maxay samayso aad soo kiciso daaqada la yiraahdo solution explorer waayo isaga ayaa foomkaaga laga sii dhex dooranayay. markaan saa soo kiciyo ayaa waxaan leeyahay waa kan foomkaygii baan dul tagayaa. foomkaygii marka saa dul tago waxaan leeyahay view designer hadda maaha view code waa view designer baan leeyahay. ugu horeyn iyada ay soo kacday oo waa tan daaqadii solution explorer kuna way furantaa. toolboxkaygi baan dul tagayaa ama halkaasaan kali garaynayaa ama waxaan isku qabanayaa control alt plus x dibadna sidan bay soo baxaysaa. inta waxaan kaga gudbaynaa sida aynu ka heli karaynay horta aan ku yar daro haddii marmar baa jirta daaqadan ay istaaginba oo mar walba caynkaa noqonayso mar walba markaad waxba dhisan garaynay dhag waxbaad halkan baa wax ka soo aruursanaysaa waad soo qaadanaysaa mar walba caynkaasi kaa noqon waxaad rabtaa inaanad marba saa usoo doorano saa usoo kicine ay isaga kaa taagnaato ataada taagno ilaa intaa ku isticmaalayo. halkaas iminka saad aragto waxaa yara aad moodo musbaarkaya wuu jiifaa wayna taagtaa oo hoos u foororisaa saa markaan dhacdo iminka haddaan maanta halka wax ka soo qato aan kan ku dhufto wax ay dib u noqonaysaa haba yaraatee ma jirto. daaqadaha kalena waa la mid iyaguna wada leeyihiin dhammaantood way wada leeyihiin. marka inta badan waxaan malaynayaa inaanay propertieska iyo lahayn oo kuwan iyagu waa dul fuulaan dabeedna iyaga halkaa hooseed ka kala dooranaysa iyo labada midna properties midna solution explorer. marka waxbayaynan ku noqonin kuwaas aynu u gallo daaqadeenan toolboxka waxaan ugu horeeyay waa tii toolkaad isticmaalaysay ba aad ka wada helaysay. daaqadan waxay xambaarsan tahay dhammaan tooliska aynu ku shaqayn doono hadduu koor yahay koodhka oo isagu ma loo fikirayo mooyaane wax kasta oo aad soo qaadan karto oo preparation tools ku diyaarsan ayaad ka heli kartaa dhammaantii. marka guud ahaan iminka waan isku soo celceliyaa waxay ka kooban tahay 12 program ama tools waxa weeye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 bay ka samaysan tahay. 12 ka haddaan mid ahaan ka sii furo iminka wada aragtaa mid ahaan hadda iftiligta iminka ma furno macnaa weeye haddaan saa sii furo waxaan ka helayaa waxaan oo toolista ayaan ka isticmaali karaa dhammaan oo ay siinaysaa midka kaliya halkii mid ayaa waxa soo toolista ku guda jira waxa soo toolis binary baa ku guda jira background worker baa ku guda jira bloody notification baa
navigatorkii baa ku guda jira, bleeding sourcigii baa ku guda jira, buttoniskii oo ayaa ku guda jira, checking boxkii baa ku guda jira, checked list boxkii baa ku guda jira, more in badan iyo in badan oo inaan dee halkan kusoo koobi karayn oo waxaasoo dhana oo aynu in badan ka isticmaali doono, badankoodana isticmaali doono sidayd arki doonto casharada dambe ku arki doonto. taa haddaynu iska soo xidhno, taa laftigeeda iyadoo waa iska daysan karnaa, haddii iyadoo furan iyadoo xidhan waad iska daysan karnaa. markaa iminka taas aynu furanay intaas oo tools bayna siisay oo aynu ka isticmaali doonaa, waana ta ugu badan aynu ka isticmaali doono all windows formska. haddaynu doonana waa iska soo xidhi karnaa oo saasaan iskaga soo xidhi karnaa si aan kuwan kale u furanno. haddaynu doonana intaynu iska badayno iyadoo furan ayaynu kuwii hoose tegaynaa, hoos baynu u raacaynaa, kadibna combo boxka oo ahaad qaybtii labaad ku xigtay waa chapter markaa macnaha intaasoo cashar baa ka farcanta chapterkii walba. bal hadda chapterka la yidhaahdo combo box toolskana aynu tagno, isaguna intaa ka hooseysa halkaasaa kala qaybinaysa. macnaha combo boxka wixii ka hooseeya ayaa iyada hoos yimaada, taa kalena wixii ka hooseeya intoodaas oo dhan ayaa hoos yimaada. waxaan u malaynaya waa ta ugu badanba qaybtaas sare. kolley tani aada uma badna, intaasay ka kooban tahay, halkaa laga bilaabo iyo ilaa iyo waynerka. iyadana waxaa ku guda jira combo box common controls baan leeyahay, combo box baan maanta walaa sorry, common controlska waynerka waa ku guda jira. waxaa ku guda jira picture box oo markaad sawir kusoo gashanayso waanu casharada dambe ku arki doono inagoo isticmaalayna buttoniska laftigiisa waa la mid, text boxka waa la mid, combo boxka la mida. waxaas oo dhan waynu isticmaali doonaa insha allahu haddii ilaahay inoo saamaxo. iyadana waxba yaanu dheeraan maya sideedaba ha inoogu furanaato hadday doonto. containerka ku xiga oo isaguna ah chapterka saddexaad, containerka intaan baynu ka helaynaa isaga wax badan maaha. baynerkaasi meel walba waa la socda, waa uga horeeya isaga. waxyaabo kale ama barogaraamo kale ayaa lagu dhigtaa oo ma isticmaali doono. marka flow layout panel ayaa iyadana ku guda jirtaa, group boxkii baa ku guda jira oo markaad koox tools aad midaynayso aan isticmaali doono. panelkii aynu arki doono isagana waxaa loo isticmaalo iyo labadaa kale program time controlkiiyo ka mid yihiin. isaguna waxaa ka mida chapterka afraad ah menus and toolbarska oo isaguna intan xambaarsan. isaguna intaas ayuu ka kooban yahay. status stripkaas aynu ka isticmaali doono, tool stripkana aynu ka isticmaali doono, sidoo kale iyo wixii kale aynu uga baahana aynu ka isticmaali doono. waxaa kaloo ka mida dhaatadii oo isaguna markaynu dhaatooyinka ama accesska aynu kusoo xidhi doono halkan aynu ka isticmaali doono, tan ka isticmaali doono. taas laftigeedu waa isticmaalaynaa, tan la mid taana laakiin graphiska markaad wax ku muujinayso ayaad iyada la isticmaalay, laakiin iyada ma isticmaali doono. kaasina waa chapterka afraad. kii shanaad ayaynu gelaynaa. chapterka shanaad waxa uu xambaarsan yahay, waxaa horta magaciisa la yidhahdaa components baa la yidhahdaa. isaguna waxa uu xambaarsan yahay intan hoos inooga muuqata. isaguna timerkiibuu xambaarsan yahay, service controlskiibuu xambaarsan yahay, processkii iyo background workerkii oo kuwii horena ugu horreeyana xambaarsanaa oo dhammaan. laakiin waan yar halmaamay, raalli ahaada. casharka ugu horeeya chapterka ugu horeeya waxa uu soo koobsanaya oo dhammaan toolskii ku xeeraysnaa buttonada kale oo dhan, laakiin intan kale way kala gruubeynayaan. kaasise muxuu samaynayaa? dhammaan wuu isku darayaa, wax allaalay waxa tool meesha ku jira wuu isku darayaa. aan iska soo yara xidhno, wuu isku darayaa. tusaale ahaan markaan kuleeyahay wuu isku darayaa, baynerkii wuu ugu horeeyaa,
waxaa ku xiga backgroundkii bleeding navigatorkii waxaas oo dhan waa kan halkan ugu horeeya. kan waa laga heliyay iminka haddaynu ka doono halkan ka raadino. waynu ka helaynaa isaga laftigiisa. iminka chapterkii saddexaad baan malaynaya inaan ku eegnay taas. tan waa la mid sidoo kale tan oo inaga dee ta ugu dambeysa ku dhigana iyo taas iyo inaga ku dhiganaynaa aan hadda soo saarnayba. macnaha waa kan tii xagga sare ku soo aragnay waa tanna waa la mid. marka aynu uga sii gudubno chapterkan kale Britain baa la dhahaa. Britain magaciisa ayaa la yaadaa. isaguna Britainada iyo dhammaan waxyaabaha ku saabsan ayuu isagu khuseeyaa. markaas waxaa kaloo ku xiga chapterkan la yaado dialogueska ayaa ku xiga oo isaguna xambaarsan waxaan badnayn oo pointiskii iyo inuu qofku markuu programkiisa soo kicsto uu choose u leeyahay oo dooran karo programka fartuu doono. sidoo kale colorku doono oo color dialogue ba ku jira, folder browser dialogue ba ku jira, point dialogue ba ku jira iyo wax kale oo fara badan labada program oo kala ah oo kamid ah. marka chapterkan kale ku xiga oo la yiraahdo WPF interoperability ayaa ku xiga. marka isagu labada program ka kooban yahay. reportski baa kamid ah oo isagu ah ka ugu muhiimsan. waa inaad program ama database markaad abuurtaa reports ardayga laga gudbin karaa oo aad report ahaan ku soo saari kartaa isagoo waraaqdiisa informationkiisa dhammaan inta uu bilowday u bixiyay inta habsanka ay u leeyahay ID-gu u kala lahaa ayaa kaana waxba madax u ah oo hogaaminaya ID-gu uu ardaygu lahaa. marka report waa inaad ka gudbin kartaa ama ka soo saari kartaa ardaygaas. labadan chapter bay noogu dambeeyay Visual Basic Power Pack oo isaguna intaasa isaga insha Allah waxba kama isticmaali doono hadii la ka dhigo database bayna abuuraynaa. macnaha programkan looma isticmaalo kaliya database macal waxa loo isticmaalaa waxyaabaha Windows-kan aynu kombiyuutarada ku shubnay laftigiisa uu leeyahay. sidoo kale giimamka lagu sameeyaa, sidoo kale iyo programo kale oo fara badan baa lagu sameeyaa. sidoo kale generalka ugu dambeeya. generalkuna waa waxba isagu there are no usable controls ma jiro wax la isticmaali kara ayuu ku leeyahay kan. marka chapterradeena aynu soo wada xidhno iska soo wada xidhno dhammaan waa soo wada xidhaynaa. chapterradeena waa soo wada xidhaynaa. marka waan arki doonaa insha Allah casharradeena dambe ayaynu ku arki doonaa program walba halka laga helayo iyo halka laga soo qaadanayo iyo waxyaabaha loo isticmaalayo mid walba shaqadu qabanayo waan arki doonaa. inagoo wada isticmaalayna waxaanu toolisa waayo inagu database bay isticmaalayna waxaanu toolisana wax loogu tala galay ma aha inaynu wada isticmaalo markaynu database abuurayno. laakiin programo kale fara badan markaad isticmaalayso ama aad sameynayso abuurayso programo kale fara badan waad isticmaali doontaa. casharkeena maanta wuxuu inoogu saabsan yahay intaa wuxuu ku saabsanaa sidee baan u abuuran karaa oo u soo kicsan karaa form aan design garaynayo. casharkeena afraadna waxa uu inoogu xigi doonaa kan inagoo design garaynayna oo daaqadan isticmaalayna iyo daaqada propertieska labadaba. marka casharkeena maanta wuxuu inoogu saabsanaa sidee baan ku heli karaa afartan daaqadood oo programkayga ka kooban yahay oo ah tan haddaan wada xidho taas koow, formkayga labo oon halka ka xidho, propertieskayga 3 iyo solution explorer kaasoo iyaduna aad la xiri karto. marka haddaan afartii program ku celiyo afartii daaqadood haddaan ku celiyo aan isticmaalaynay
midi waa tan oo waa waxa lagu heli karaa waa solution explorerkii afartooda halkaas ka heli kartaa waa tan solution explorerkii propertieski waa tan sidoo kale toolboxki waa kan ta afraad oo formkii ahaa tan baad kasii guda heli kartaa solution explorer kan laba habaad ku heli kartaa adigoo halka ama click siinaya ama qabanaya control markaad saa dul saarto kusoo saaraya intaad isku qabanay control plus alta plus l ayaad isku qaban kartaa aan isku qabto control alta l markaa wata waxay noogu xiga sideeban formkii ku heli karaa formkayga halkan yaalay intan dhexe yaalay inaan design garayn doono insha Allah xageebaan ka heli karaa waa kan haddii aad soo kicisaba daaqadaadan ood hesho iyada laftigeedu kusii guda jiraa saas umada dul tagaysaa kadibna markaas oo kugu calaansibay ku haleedsamo waxaad leedahay view designer itus design-kaygii saa markaad ugu dhufato waa kan uu kuu soo saaraya dhammaantii markaa iyadoo kale sidoo kale toolboxkana mar walba isaga qaybtan buu degaa labada daaqadooda kale la yahdo solution explorerkuna iyo propertieskuna qaybtan bay degaan oo iska leeyihiin formku mar walba xaggaas ayuu isaguna raacsan yahay oo wuxuu ku xigaa toolboxka ayuu ku xigaa toolboxkana labada habeen ku heli karayna wuxuu ah inagoo halkaa click siina iyo inagoo isku qabanaa control plus alta plus x tii hore waxaan isku qabanay plus control plus l waxaan isku qabanay control plus alta plus l tan toolboxkana waxaan isku qaban doonaa control plus alta plus x control plus alta plus x waa tan noo soo saartay waxa kaloo iyadana la soo baxayna propertieskana iyadana laba process ayaad ku heli karaysay oo ahaa inaad halkaa kili garayso inaad F4 waad halka ku qoran F4 waad halka ku qoran hoose oo ku calaamadiyo qowska ku galiye F4 inaad taaban karto F4 hadaan taabto markiiba waa tan way soo boodaysaa waxa weeye aan casharka kugu dambaysiinaya haday daaqadaas caynka iminka ay tahay way taagantay macna weeye dhaqdhaqaaqaysa sideedaha ay ugu taagno toban ku isticmaalo haday sidaa tahay laakiin mar walba waxaad leedahay waad furanaysaa waxaad leedahay hebel kale ka soo qaad marka halkan ku geli karayso way iska noqonaysaa haddaad rabto inaanay iska noqonin waxaad u baahan tahay halka yara jiifta boolka yara jiifa ee auto hide ku qoran tahay inaad sidaa taado nag weligeed baanay noqonin haddaad maantaba aad baro wax kasta tools kasta inta soo qaadato halkan dhigato oo soo qaadato halkan dhigato oo siga ka taagan tahay casharkeena caawo intaas inoogu eegyahay intaynu casharkeena afraad u gudbi doono aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayguna waa anigoo ah Casayr Aadan Salaamaan idinleen socodsiin doona casharahan taxanaha ee luqadda VB gaan ku baran doono والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.